innaga haddii waxayna warwar geliyaan maxaynu idhaahnaa bal tolka u tag bal aw hebel u tag bal taajir hebel u tag marka waxa dhib ku qabsato ama mashkalad ku qabsato waxa koowaad aad ka fakartaa makhluuqaadka u badan yihiin cidiyaad leedahay kugu ag xeeranaad leedahay waxbay qaban kartaa manhi ma aha inaad bini aadamka kaalmo weydiisato laakiin waxa ka muhiimsan inaad marka hore albaabka ilaahay garaacdid waxa ka muhiimsan nolosha wax kastoo kugu cuslaada inaad xagga rabbi ula kacdid ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام قضية أنتو فهمي وهو كل رغمي أيوه الصحابي قاسي كورين يا ولاي إذا حزبه أمر هدي وحبابه ورور قليان فزع إلى الصلاة حق الصلاة دا أيوه عرر يشري إلا حديث كتغير أرحنا بها يا بلال أما كنت المامي قرة عينه نيتي وحيشي سكدوك ستو إذا وحن لا نهي صلاة أجر وكر هذين نوادب دنبي مايدا أجر بالغو هلا جنة لغو قلا قيامها مركا لتقوى وحاوه الرجال اسكو حسابه هدي وين أكسناتو جنة ذات هركك وحا صورنا وينو هينا وجنة إيو آخرك وصابسن لكن وحان كور رمينا وامحي ومنافع دنوية وحان كور رمينا وحويان عبادة ما آخرين ولسوا قلنا مساء دون كيف فائدة لهذي وحويان دون كيف فائدة لهذي أدونك دقن كاغا بدليسا علماء التربية علماء السلوك waxay ku takhasuseen oo dhami waa in la bedelo dhaqanka qofka bini aadamka hadaad rabto dhaqankaaga inaad bedeshid salaadaadu ha xoogaysato salaadaadu ha qurux badato salaadaadu ha tiro badato salaadaadu tii nabiga hawaa ka taala salaatu wasalaam taasi waxa ay sababaysaa isbedel nololeed inuu dhaco وحلاليه وح السلوكيات كاجي إنه وناق نقو كران إذا وحن لنا هاي ومنفعة دنوية إنت أن منفعة آخرة لقارن وحن لنا الزكاة ومنفعة دنوية الأصل الشريعة يتلمام سواء محي كي لا يكون دولة بين الأغنياء مركو هربا هنتي ده وحلوه تلقى لي إن أنا يدد يرجع أنت تكو أورورين أنت كلنا كبختنين ضد يرجع أنت ودينا أنا كو أورورين marka shariicada islaamiga marka aad eegto hantidu markay ururtaba dib baa loo burburiyaa oo dadka loo dhexgeliyaa midalan dhaxalku waa maxay wadanadan gaaleed nin baa xoolo badan helaya carruurtiisa mid quro ka mid uu dardaarmaya marka lacagtii way sii buurnaanaysaa oo dadkiina waa lacag beelaya hantidii bini aadamka oo dhammi laba saddex nin bay ku ururaysaa maanta waxa la tilmaamayaa dhowr nin dhowr qoys ayaa hantida dunida taalo oo dhan nuskeed iska leh hadda waa dhowr qoys hantida dunida kor taalo oo dhan nuskeed iska leh maxay saasi u dhacday waxaan jirin nidaamka dhaxaleed ee islaamku u dhigay oo nidaamka dhaxaleed ee islaamku wuxuu tilmaamayaa ka inoogu xoolo badan ee maalintuu dhinto ayaa hantidiisa la qaybinayaa afartaneeyo qof unbaaba dhaxlaya dabeetana middle class bay ku biirayaan dadka ka mid ahaanaya hantidu marka ma noqonayso meel la isku gumaysto marka sharciga islaamiga dadku si dhab ugu dhaqmayo ilaahina wuxuu leeyahay qaacidaduba waxay tahay kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniya inaanay hantidu noqonin inta ghaniga mid dhex joogta haddaba ilaahay wuxuu leeyahay khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim xoolahooda ka qaad baa ilaahay yidhi زكاة كقاد تنواتي فرال كاهي تاسو نفهودا يمال كودا بلغو طهيرا يو لغو كوبعينيو نفط بخلقة يردقى مضى حنحن بيكا طهيريسا دانكا كالنا وحي سبينيسا تكافل الاجتماعي بلشدو يني اسكوفي اللاتو سيستم كقالدو واللعق لغا قادو دادكا وعشور ليدادو لكن mostly cashuurta waxa la yiraahdaa waxa laga qaadaa dadka tamarta yar leh مثلا cashuurta bini aadamku waa inta badan ay qaadaan waa income tax bay wadantay cashuurta marka la qaadayo miskiinka yar ee xoogsaday ee dhididay ee mushaharka qaatay dawladaha Yurubiya meelaha kan boqolkiiba 30 boqolkiiba 40 kuwa ugu yari oo liberal democracy-ga Mareykanka iyo meelahaasi 17% meelahaas ay qaadaan
kuwa social democracy-giina ilaa boqolkiiba 40 bay qaadaan marka miskiinku wixii hanti soo galay mushaharkaagaad shaqaysatay مثلا ka soo qaad 10,000 baad shaqaysatay boqolkiiba 40 bay dawladdu la hadhaysaa maxaa ku soo hadhay haddii 10,000 ay 4 la kacday maxaa soo hadhaya 6 baa soo hadhaya 6daas haddana markaad suuqa wax ka iibsanaysa faat wax la yiraahdo la qaadaa shay kastoo aad iibsato مثلا Scandinavian kuwa boqolkiiba 25 baa haddana dib lagaaga qaadaya boqolkiiba 25 kale markay la tagaan haddana maxaa ku soo hadhay يعني waxa adigaba kugu soo baaqi noqonaya wuxuu noqonayaa wax yar عن ظلم baana lagaaga qaadaya xoog ah kuwa xoolaha leh maxay iyaga lagu sameeynaya income kii sanadka soo galay baa cashuur yar laga qaadaya marka laga reebo loop holis badan oo kale ay sameysteen oo ah inay investment sameeyeen ka wax laga yaabaa in la yiraahdo shirkadaha ugu waaweyn rag kale in la yiraahdo sanadkan cashuurtiisu 0 bay ahayd oo maxaa dhacay waxay leeyihiin intaasoo investment u sameeyeen tan caynka mu sameeyay income saasi ma jirin hadiiba laga qaado waxa laga qaadaya waxa la leeyahay ninkani billion dollar buu haystay 1 milyan buu faa'iiday milyankaas laga qaadaya 40% kii ama 30% kii wixii la qaadayay oo halka bilyanna waa usuushi bay leeyihiin iyada laga qaadmaayo waa wixii uu hore u helay sanadka dambe milyankiina wuxuu ku biiraya waxaan cashuurta laga qaaday marka sanad walba isaga waxa laga qaadaya inta markaas soo gashuun intii hore se laga qaadi maayo ama shariicada islaamiga waxa la qaadaa hantida qofku haystee asnaaftii quraanku sheegaya ama diintu ay sheegtay oo dhan ayaa 2.5% laga qaadaa walidaalika waxay yiraahdaan maraykanku wuxuu cashuur qaado oo dhan marka la isku daro waxay u dhigantaa bay yiraahdaan haddii nidaamka islaamiga lagu xisaabiyo 3% bay u dhigantaa bay yiraahdaan that means sharciguna wuxuu qaaday maxay 2.5 laga qaaday dadkii qaniga ahaa oo la siiyay dadkii fuqarada ahaa iyaguna waxay qaadeen wax 3% u dhigma oo laga qaaday inta fuqarada nafta la isugu keenay inta aqniyadana wax yar laga qaaday idan cadaaladdu waxay ku jirtaa dunida marka la eego kan islaamiga bay ku jirtaa laakiin inagu waxaynu rumaysanahay diinta inaan lagu dhaqmi karin dadkan cashuur laga qaado dawladdu cashuur la'aan inaanay noolaan systemku cashuur la'aan inuu baabaayo waxa soo dhameeyo jahligeena soo duuduba waxaan leenahay si dadku uu noolaado qofkii dan yartay aan waxba haysanin عن طوع بو قفكي وحيستي وبحنايا إنه 2.5% هنتيديسا كبحيو سب الشدة اللوغة وايا وح فقراء فعلا هدي سيدو الشرع والشاقي لو معموليو فقير لما هلان تصالة بسيطة دكتور شينا وحلا يقى الشاقي إنه تلكي يوتقي دابا تنوي يرين إذا كذا بحيان reerihii qayb ka mid ah reerkii ayaa aqbalay odayaal buu sameeyay zakadii bay qaadeen soo liskareeyay buu dadka fuqarada reerka ku jira waa la soo liskareeyay dadkaasi sidee u kala liiteen buu wuxuu siiyay cid wax siiyo waxay ku tala galeen inuu noqdo qof isaguna sanadka dambe zaka bixin karaya reerkii sidee u wadeen reerku uu faqri beelay marka la uu faqri beelay waa maxay dhamaantood waxay noqdeen dad zaka bixin kara dhamaantood waxay noqdeen maxay dad zaka bixin kara waa model yaro kooban waxaan tilmaamaya maaha model umadeed waa model walba reer miyi ku saabsiisan maaha dad xoolo leh iyo lacag leh iyo kalama yahay taasi waxay tilmaamaysaa zakadu inay tahay maxay nidaam takaaful ijtimaaciya qaab bini aadamku uu wada noolaado qaab bulshada looga tirtiro in faqrigu jiro qaab ay u dhici karto inuu dadku mustawa uu soo gaari karo dhammaantii inuu noolaan karaa intaa waxa dheer dee jannadii iyo aakhiro iyo wixii ilaahay ballan qaaday iyo barakadii xoolaha lagu gelinayay namaagii ku dhacay waxa kuu soo hadhayna waa dhankeedii kama warramayna markaa fawaa'idii diineed ama aakhiro ama ajare ay lahayd kama warramayno laakiin waxaan leenahay manaaficda dunawiga ku jirtaa waxay tahay waa system samaynaya inay bulshadu hesho takaaful ijtimaaciya oo isku filaan karto iyadoo aan cid kale wax weydiisan waa haddii maxay sidii loogu talagalay ay u socoto الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت عبادات كمعروف كا
waayo waa kuwa dadku ay u haystaan inay cibaada maxda tahay oo aakhiro uun looga dan leeyay xaqiiqo waxaa horta